الحمد لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة ورفع بها عن القلوب الأكنة، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائد إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمانة للناس ومنة. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من الكتاب الثاني من دروس الدورة الحديثية التأصيلية، وهو 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للإمام محي الدين يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال وحوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس dadku waxay soo gaadheen waxaa ka mida min kalaami nubuwati اluulaa, nebinimadii hore hadalkeedii ay ka soo gaadheen. idaa lam tastaxyi, haddaad xishoon weydo, fasnac samee oo yeel maa shita wixii aad doonto. rawaahu lbukhaari. xadiidkan bukhaari baa la keliyoobay. waxaa kitaabka aada ugu badan axaadiidta muslim la keliyoobay, oo caawana axaadiis badan oo muslima aynu qaadan doonno, laakiin way yar tahay axaadiista bukhaari uu kala keliyoobay 40ka ku sugan. kanaa ka mida imaam albukhaari baa saxiixiisa kusoo warinaya. saxaabiga inoo soo warinaya waa abu mascuud cuqbat bnu camr, waa ansaari, ansaar buu ka soo jeedaa. waxaa kaloo lagu sheegay albadri oo loo nisbeeyey bader. marka ma dagaalkii bader buu ka qayb galay oo sidaasaa loogu nisbeeyey mise wax kale? horta meeshu waa bader wey. saxaabi haddii la yidhaahdo waa badriyun, maxaa soo degdegaya? dee inuu dagaalkii ka qayb galay. hadda waa gobol madiina hoos taga wey, mandiqada madiina. marka culimada qaar waxay yidhaahdeen bader kama qayb gelin, wa inamaa nazala bimaa'iha, meesha ayuu degay, ceelasheeduu degay. meesha bader la yidhaahdo ayuu degay, dagaalkeedana kama qayb gelin. marka albadriyu marka la yidhaahdo yani lam yashhad badran, dagaalkii bader ma gelin. wa inamaa nazala bibadrin, meeshaasuu degay. marka waa cilmi la yidhaahdo, waynu gaari doonaa musطalaxa almansuubu ilaa khilaafi الظaahir bale, waa baab dhanoo musطalaxa ka mida. kuwa loo nisbeeyey sida soo degdegaysa sidaan ahayn loo nisbeeyey. marka albadriyu marka la yidhahdo waxaa soo degdegaya dagaalkii bader, laakiin kama qayb gelin. sidaa awgeed baa naadimkii ku daray kuwa noocaas: wanasabu اlbadriya wاlkhuuziya لكونه جاور والتيمية كذلك الحذاء للجلاس ومقسم مولى بني عباس. مقسم وحو ملازمي وكهر واي شيخي سي عبد الله بن عباس، دبنا waxa loo maleeyay inuu adoonkiisa yahay. مقسم مولى بني عباس bal mawlihiisana ma ahayn. خالد الحذاء baa kutubta xadiidkeeda ku soo maray. خالد كبطله ولقي كما متلي، وهذا محل له يدي خالد الحذاء كذلك الحذاء للجلاس صاحب الله. مرهدات كبطله صاحب للنغطره أنت منهم. خالد الحذاء بالك المرء مع من جالس. خالد الحذاء وحلم ده البدري نكنا نكهر لي جاور ببدر لكن لم يشهد. waa sida mashhuurkaa wey, laakiin culimo kale waxay leeyihiin waxa weeye bader buu ka qayb galay. mar hadduu ka qayb galayna albadri waa sidii la yaqaanay wey, saasuu sax ku yahay. saxaabigaasi axaadiis badan buu ku leeyahy bukhaari iyo muslim. waa saxaabi jaliila oo culimadii saxaabada ka mida. wuxuu dhintay 40kii hijrada wax yar kadib, waana saxaabi macruuf oo jaliila. حديث بدل متفق أبو لي البخاري ومسلم.
وحلي النبي عليه الصلاة والسلام أنبيادي هره waxa laga soo gaaray waxa kamida xikmadaha laga dhaxlay أنبيادي hore waxa weeye wala isku duubay nabi maxamed marka la eego waxa ka horeeyay ciisa ka horeeyay laakiin hadda waxa looga jeedaa an-nubuwwatu al-ula ila aadam laga gaaray waxyaabihi laga dhaxlay iyaguna iska dhaxleen waxa kamida jumlada إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هداد حشون ويدو واحد دون تصمي فاصنع وأمر وهي علماء سويديا أمر كاسي ما أمر كلا يقان نيبه ولا إسكت دون أيو وحكستي إلا صمي مسا أمر كا واحد لوغة شيدا معنيه اللغو يقان ني معنى أنا هاي أمر كمعنيه سمحوه ده هو فعل الله صمي فعل الله صمي إلا فليو مساسا لوغة شيدا هو لا يسكدوني اصنع ما شئت واحد دون تصمي ولا يسكدوني مسوحا لوغة شيدا أمر كمعنى كله ومعنيه اللي يقاني أنا هاي وهي أمركم معنى يالك لوي ماذا علماء قالوا حيدا هذا الماء ومعنيه سي وواحد لوغة شيدا shayga aad doonaysa inaad ku dhaqaaqdo haduu yahay wax laga xishoodo ka joog haduu noqdo waxaan laga xishoonayno caadiyana isna samee marka shaygu hadii uu noqdo shay aanu qofku diiday ka booday waxa weeye ka dareemayn ceeb ka dareemayn naftiisu ku xasiloon tahay waa samee wuxuu doonaba ha noqdo laakiin ka laga hadlaya ka bukama waa ka qalbigiisu buko ee waxa weeye macsiyo iyo shahwa iyo dambi ka buuxdo isagu data haduu qaato wax badan buu sameynay dambigii buu oranaya naftayda ku degan kama xishoonayo dabadna waa sameynay ee waxa looga jeedaa qofkii mu'minka ah ee dabiiciga ah baa looga jeedaa waxayno iman doona waxa weeye albirru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas dhanbi waxa la yiraahdaa waxa kugu soo noqnoqda ma samaysa ma iska daysa oo aad diidayso dadku inay kugu arkaan ayaa dhanbi la yiraahdaa marka waxa looga jeedaa hadii wax laga xishoodo aanu ahayn samee waa caadi macsiyo iyo dambi ma macnaha lagu macnay marka isna ma shiit wa samee mar hadaanu ahayn wax laga xishoonayo macnaha labaad waa in la yiraahdo amarkani ma aha amarkii la yaqaanay ma kuwaasina laba qaab waa u dhigeeno amarku ku yimaado qolo waxay yiraahdeen أمر كان واحد لوجا شيدا بمعنى الخبر وربا لوجا شيدا وربا لوجا شيدا ووركا سوا محي واحد لوجا شيدا إذا لم تستحي هداد حشون ويدو اصنع أي صنعت واحد صمين يسا ما شيت واحد ضد قفك حشوتك كتجي وحضانو صمية مركوا بمعنى الخبر اصنع أي بمعنى صنعت هداد حشون ويدو وحول بوات صمينيس اللي حشود ببلهيدي ولنحمل خطاياكم ولنحمل وأمر با لفظ وياه لكن وحل لوغة شيدا ونحمل خطاياكم سورة العنكبوت أنك الدم بيدنا قاضي معناها اللبات أمرك وحل لوغة شيدا أمرك بمعنى الخبر وأي مادة سدا إنه شيء القرآن كنا وكوي لغتنا والله استعمالها اصنع أو صنع قال هذا كله وحي لهذين أمر كني وحلوه شيء التهديد وأنا معنى ياش اللفظ جاء أما الصيغة أمر كوي ماده وللتهديد تهديد اعملوا ما شئتم وح الله لو واحد دونتان صمية
maxaa ka dambeeya innahu bima tacmaluuna basiir waxaad samaysaanna ilaahay baa taalacanay waa hanjabaad macnahana waa lagu macnay isagaana ugu dhow waana macnaha uu dooranaya ma xoojinayo ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala marka labada macno damba ugu dhow in amarku yahay tahdiid ama bimacna al-khabar laakiin aanu sidiisa ahayn xishoodku waxay yidhaahdeen waa dabeecad qofka u diidaysa wixii xun khuluqun yabcathu calaa tarki alqabiix dabeecad kugu keenaysa wixii xun inaad iska dayso wixii laga xishoonay diinteennana meel weyn buu kaga jiraa wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ku yimi alxayaau laa ya'tii ila bikhayr xishoodku wanaagun buu keenaa xadiidkii kalena waa kii isaguna saxiixa ku yimi alxayaau kulluhu khayr xishoodka dhammaantii waa wanaag wey xadiidkii sunanta ku yimina ina likulli diinin khuluqa wa khuluqu lislaami alxayaa diin waliba dabeecad baa u astaana diinta islaamka dabeecadiisuna lagu yaqaanaana waa xishoodka wey in la xishoodo marka xishoodku waa dabeecad aad u weyn meel walbana waa gelaya laakiin markay masaladu soo gaadho diin iyo cilmi iyo faa'iidaysi iyo masale kugu taagan inaad culimada weydiiso ama ciddii kugu dhaanta taa ka tegiddeedu waxaa laga yaabaa xishood awgeed inay dembi noqoto oo qofku uu yidhaahdo waan ka xishoonayaa inaan weydiiyo ama gabadhu ay tidhaahdo waa khatar weyn wixii diinta madmadow kaa gala fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waxyaabaha cilmiga qof ka hor istaagana waxaa ka mid a inuu khajilo xishood dhaba maaha xishoodku waa wada khayr wey laakiin khajilaad iyo dacfi inuu qofku waxa weeye uga gaabiyo cilmigii ninkii gabiya waa kii lahaa idaa lam takhsha caaqibata allayaali walam tastaxyi fasnac maa tashaau falaa wallahi ma fi lcayshi khayru wala dunya ida dahaba alxayaau yaciishu lmar'u ma staxyaa bikhayrin wayabqa alcuudu maa baqiya allixaau kii kalena waa kii lahaa idaa qalla maau lwajhi qalla xayaauhu walaa khayra fi wajhin ida qalla maauhu xayaaءaka faxfad calayka fainama yadullu calaa ficli lkariimi xayaauhu way tilmaamayaan xishoodku inuu yahay shay aad iyo aad u muhima alxadiiثu alxaadi wاlcishruun can abi camrin waqiila abi camrata sufyaan bni cabdillaah radia allahu canhu qaala wuxuu qultu waxaan idhi yaa rasuula allah qul waxaad igu tiraahdaa lii aniga fi lislaami islaamka dhexdiisa qowlan hadal laa as'alu canhu hadalkaa aanan weydiinay axadan qof hayraka adiga aan ahayn riwaayadka qaarna waxaa ku yimi bacdaka adiga dabada aanan u baahanayn inaan cid weydiiyo qaarna waxaa ku yimi biamrin actasimu bihi shay aan ku dhego ii sheeg oo aan ku mintido qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qulna aamantu billaah ilaahay baa rumeeyey uma istaqim kadibna toosnow oo diinta alle subxaanahu wa tacaala ku toosnow rawaahu muslim xadiidka waxaa soo warinaya sufyaan ibni cabdillaah athaqafi aطaa'ifi abu camr aw abu camrata wuxuu ahaa badho saabkii cumar bnu lkhadaab waxa weeye taa'if oo degaankiisa ahayd oo banu thaqiif ay deganaayeen ayuu xilligii cumar badho saab ugu ahaa wuxuu weydiiyey su-aal weyn nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ah waxaad ii sheegtaa shay aan ku dhago nabi allow ii sheeg oo aanan cid kala weydiin nabigu laba jumladood buu siiyey
آمنت بالله إلهي برهمي وأصل أعماش حبناها لغا سمين يا أصل إن إيمان لغاهر سيدا أوجد قفك قال كا عبادة كان صيح ميسو دو الصلاة صوم حج كان صيح ميسو وإن إيمان كان لغاهر إيمان كان مركا لحقيقي ثم استقم دين تعالى سبحانه وتعالى كتوصنو الاستقامة وسلوك الصراط المستقيم شدك توصن إناد قاضو إلهي إنو تشاحي أي وحل إلى استقامة ألا تلتفت ولا تعدل يمينا ولا يسار شدك توصن aad jannada ku galaysa hadii aad hayso inaad midig iyo bidix midna uga degin toos aad u hayso kaasa istiqaama leeyahay taladan uu nabigu siiyay alayhi salatu wassalaam iyadoo sideeda saba ilaahay quraanka ku sheegay sheegi kartaan ya labada soo wada socda ha fastaqim kama amarta ma ربنا الله ثم استقاموا ربنا الله ومعناه وآمنت بالله ربي والله الإيمان بالله وتنصو شيغني وحكوك الإيمان بربوبيته ووجودي وتنصو مري مركا ربنا الله وآمنت بالله ثم استقاموا يدوى سيدي وي تتنزل عليهم الملائكة أما فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة الأحقاف كتب يفصلت لبضاسي waxay ka soo kala jeedaan laba mawduuc oo waaweyn oo la inooga baahan yahay rabbuna allah ama aamantu billah waxa soo guda galaya alquwa alilmiya inaad cilmi yeelato inaad qanaaco yeelato inaad iimaan yeelato in ikhlaas laga helo wixii qarsoonayo dhanba soo guda galay ugu weyn yahay alilm wal iimaan qaybta labaadna waxa soo galaya thumma istaqim wa wixii la sameynay alquwa al'amaliya in wixii la rumeeyay la dhaqan galiyo oo amarkiina la fuliyo nahyigiina laga joogsado marka qofku wuxuu u baahan yahay quwa cilmiya iyo quwa amaliya awood aqooneed iimaaneed iyo aqoon fulineed labada waa la isla helaa labadaas iyo in lagu toosnaado jidka toosan labadana laga helo kuwii khilaafayna laga baydo waa ducada ugu qiimaha badan ee loo doortay suuratul faatiha lagu soo khatimo ihdina as-siraatal mustaqiim wala soo ilaahi balla amaanay alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ducadana hadii lagu bilaabo amaan alle wala aqbala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa i'tiraaf qofku i'tiraaf haduu sameeyana وحيابها الدعاء قيمها ويانا اهدنا الصراط المستقيم والدعاء جدك توصل إلهي ونوهنون صراط الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي وجدك هذا نغير عليه المغضوب عليهم واليهود الضالون النصارى النبي عليه الصلاة والسلام يقول اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون اليهود وحلقها لي قوة علمية لكن وحي كفى الشلمان القوة العملية بكفى الشلمان أقوم بيهيين يا علمي لكن هو قشي الشهوة أقوم توديكم يعمل فريد ويبال مريد سيدا اوجد با غضب الله عليه وحويه يغا لوغو عدود ووصفها لوسي والا يهود ومغضوب عليهم وضالون نصارى لفتودنا ومغضوب عليهم وضالون
laakiin qolo walba wasfigii ku haboonaaba la siiyey nimanka kiristaanka la yidhaahdana waa cagsiga waxay hayeen quwa alcamaliya way cibaadaysanayeen laakiin jahli bay ku cibaadaysanayeen dalaal bay ku dhaceen marka qofka cilmiga leh xumaada yahuudu shabahay bay culimadu yidhaahdeen man fasada min culamaa'ina fafiihi shabahun min alyahuud waman fasada min cubaadina fafiihi shabahun min annasaara kuwa cibaadaysanaya ka xumaadana kiristaanku shabahay waayo jahli buu ku cibaadaysanaya ducadaasina de waa ducaynu ku soo celcelinay salaada dhexdeeda iyadoo ilaahay la ammaanay ictiraaf la sameeyey salaadii loo taagay ee gudaheeda waa ducaad u qiimo badan walibana imisa jeer baan soo celcelinaa faatixada salaada dhexdeeda imisa jeer 17 waa faral 10 raatiba uge 7 laba duxa uge 9 11 salaatul layl uge xisaab u baahanti 9 loo geeyo 11 waa 4 تزيد أو تنقص قار ويكبض يا قار ويكيريا أفرتن كاس كويت واحد وقدر نواتي النبي شوكتي عليه الصلاة والسلام لكن هدي عاد كويت وكاس كبدي صدح قدر توتريه نور يصدق بين غرس لبي يصدق بين غرس قارنا والغيا بين كسي بضيان انت سوى انت شوكتدا قفك مسلم كان لدون ايو مستقيم كاينو كددال أفرتن شير وحكو دودو صلاة دحديد أيين الدعاء كو دعيسنين إلهي ونتوسي ترى وحكو سوغان استقامة إنا لو دقاري وأيضاك قار وحا لغا بين إلهدان انت بوا صبيا هبين وننا صلاة الليل بانو تاغانا سوك كانوا بتصبا ذنبي حلو قد عبا قران ماي هدو قد عنا وكتوبت كينا مركا إلهي إهانوني محمد رب الله سؤال عليني هنونين توعد بيوبلت نبي وحور يستقيموا ولا تحسوا توصنادا إنا توصناتان نوذا كوبي ميسان وحوي عيدنا كوبي ميسا وحان أنبياء كاهي كمال كردما يسكتران أنبياء دون بايسكالي وحن باينا قدما سيكستو اللو دذال تصوابي مرلبات إنا تكسوك نارا يسمى الضمانات بعض هايستا واتسيدا كل مريس ما هايستي waxaad ilaahay weydiisanaysaa inuu kugu sugo ihdina hidaayada ilaahay ugu sugay mar saddexaad wixii lagu hanuuniyay laftiis tafaasiil badan baa laga yaabaa inay ku dhaafto maghrib baynu tukanay Soomaa maskuuda ajar baynuna soo kala ajar baday qarba ma bayna as-samaa'i wal ard ajar ku dhaxaynay salaada waynu wada tukanay tacabna waynu wada gal marka waa nooc hidaaya qaybaha ugu sareeya inaad gasho xitaa wixii lagu hanuuniyo marka lagu hanuuniyo aad samayso ka bacdi hanuun baad u baahant dad baa intay wixii sida ugu fiican u sameeyaan bay baabinay la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha $10,000 buu dhigaya $100,000 buu dhigaya laakiin kelmad buu ka daba tuuraya kelmadaas baabinays marka amalkii lagu waafajiyay inaad ilaashatana waa hidaaya kale lama soo koobi karo waxa soo dhanba meesha ku jira marka laga maarmi maayo mar walba in lagu celceliyo xadiiska waxaanu kale ka faa'iideysanaynaa oo kaga baxaynaa qofku inuu su'aaliba su'aashay ka muhiimsan tahay uu daneeyo oo tawaafihda iyo maala yacni iyo waxaan haboonayn iyo waxaan cilmi ka dhalanayn iyo amal toonna inaanu qofku isku mashquulin waqtiga aanu iskaga lug su'aalaha muhiimka uu ku dadaalo walibana sheekhu waa inoo soo koobay oo riwaayadii caanka ahayd buu soo qaatay waxa ku yimi sunanta ya ku yimi inuu saxaabigaasi isla xadiidka nabiga ku weydiiyay markuu su'aasha nabigu uga jawaabay ma akhwafu ma takhafu alay waxa ugu badan ee aad iga baqaysaa waa maxay nabigu wuxuu ku yiri alayhi salatu wassalam hada wa ashara ila lisani arabku nabigu tilmaam
marka halka waxaanu ka qaadanaynaa istiqaamada koo waxa ka qalbiga hadii qalbigu hagaago ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat wa tansamar salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu hadii qalbigu xumaado sufuliyana waa xumaanay qalbiga kowka laba arabki oo aad u shaqeynay khatartiisuna badanta labadaasi haday kuwa hagaagaan inta kalena waa kuwa hagaagaysa الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي وويدي فقال وحوري أرأيت وحدك ورنت إذا صليت هدي أن تكدو المكتوبات صلاته فرلكها وصمت أن صوم رمضان بشهر رمضان وأحللت أن حلاليه وبمعنى أن آمنوا إن حلالته الحلال حلاش وحرمت أن حارنتني مايو الحرام حارنتي وبمعنى أن آمنوا إن حارنته كدبنا أن كفقاد ولم أزد أنا كزياد وأنا قدر على ذلك انتاس شيئا أنا قدر أدخل الجنة لبدي همزة من لغو سو غابي أدخل الجنة جنة ما قلي قال وحوري نبي نعم ها تدخل الجنة جنة قليس رواه مسلم قال النووي رحمه الله وحوري ومعنى حرمت الحرام وحلوغا جيدا اجتنبته وكفغادي markaad ka fogaanaysana de waxaad uga fogaanaysaa inuu xaraan yahay marka way iskaga jirtaa inaad aamintay inuu xaraan yahay mar hadaad ka fogaanayso wa macna ahlaltu alhalalana fa'altuhu wa sameeye mu'taqidan hillahu anigoo rumaysan inuu xalaal yahay oo de hadii shaygii xalaasha ahaa aad ula dhaqanto sidii inuu xaraan yahay ama naftaada aad ka xarinto waa la inoo diiday يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وحي ونكسنا إلهي ذن حلاليه هيسك حرمنا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك مركور ملبك والله لا أشرب إلهي بان كدار تعبي ما يملبكس حلال بوه إلهي وحوري سقع عنانا لما تحرم صدح لنا النبي قوي عليه الصلاة والسلام أي سريع عبادة بتصدى أمدي أولي والله لا أتزوج النساء كي كلنا أولي أما أنا فلا أنام الليل أبدا ككلنا أولي أصوم الدهر أبدا وحوعني ما يمالك وصومي من نوري هبيك ساحن ماي من نوري ولقي قرصان ماي نبي واكو حناق عليه الصلاة والسلام وحنا وشاقة انت بين الصبعيو تقوى الدين إن أنا كبت صني حديث كان وحصورنا يا جابر بن عبد الله أبو عبد الله الأنصاري صحابي وينا وعلماء صحابة كمدة وأنا رجي بتصدي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تطبدي صحابية وأحاديث بدنابو كمدة وحر انت سنة كي صدحت الضباطا هجرة النبي عليه الصلاة والسلام دادي سنة أفري السقاشم بيهد كان معمر عمر دير بإله النوري ماشو كل انتين واحد شوق حجاج باكتلين أيي marka wuxuu ka baqay xajaajin uu ku tukado dabadna wuxuu ku dardaarmay awsa alla yusalli alayhi alhajjaj tadarkiisu wuxuu xajaajiyaan ugu tukan ninkaas yaanu salaada janaazada maadaama meesha madax ka yahay yaanu ugu tukan waana loo furiyay xadiidka waxa lagu sheegay anna rajulan horaynu soo mar anna rajulan mustalaha maxaa loo yaqaan mubham sanad bisamat مبهم المتن وي حديث هو مسلم روايه مسلمه انه عديسن كاسي واكما ان النعمان ابن قوقل اتى النبي صلى الله عليه وسلم نك اللي يراهد النعمان بن قوقل اي النبي قوي دبنا سواشا ويدي
waana ninkii nabiga khudbadanaya intuu masjidka soo galay iska fadhiistay dabeedna nabigu yidhi kac oo tuko labadii taxiyatul masjidka xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa sidii xadiidkii horeba aynu ku soo marnay saxaabadu inay ku dadaalayeen su'aalaha muhimka ah jannada maxaan ku galaa naarta maxaan kaga badbaadaa talo weyn oo aan ku dhagaysii iyo wixii la mida waana sida laynaga doonayo waxaa kaloo ku sugan culuwu himmati saxaaba hadafkoodu wuxuu ahaa inay janno galaan maxaan janno ku galaa xadiidka waxaa la tilmaamay arkaantii islaamka laba ka mida salaadii iyo soomkii baa la tilmaamay waxaa maqan arkaantii maxaa maqan zakadii baa maqan xajkii baa maqan zakadii sadaqa waa isku zakaynu ka hadla waajibaadkii arkaantii baynu ka hadlay marka ma salaad iyo soom ramadaan oo keliya janno lagu gelaya waa su-aal meesha taalla wey maya weeye jawaabtu labadaasoo keliya lagu geli maayo laakiin waxaa laga yaabaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ninka xaaladiisa ayuu qiyaasay oo arkay zakaduna waa xoolo la bixiyo ninkana xoolo kama muuqan xajka laftiisu xooluu u baahan laakiin salaada iyo soomka hani iyo faqiirba waa u siman yihin xajka iyo zakadana nin waxaya unbaa guta markaa nabigu wuxuu sheegay kuwii bilaashka ahaa ee cid waliba ay samaynaysa jannadaad galaysaana waxa ku xidhan haddii la helo waxyaabihii kale jannada lagu gelayay oo bimacnaa haddaad xoola hesho oo aad zakayn weydo dee xisaab baa ku sugaysa adoo xoolahaysa haddaad xajin weydo waa la mid waxaa la mid a haddaad ku dhacdo dunuubta sheegaysa janno ma galo laa yadkhulu ljannata nammaam laa yadkhulu ljannata man kana fii qalbihi midqaalu daratin min kibr iyo waxyaabaha la midka man qaala laa ilaaha ila allah maxaa la yidhi dhameeya xadiid dakhala aljanna laa ilaaha ila allah oo keliya jannada lagu gelayaa miya waxbay u baahanta mafaatiix iyo shuruud iyo mawaanic wax badan bay leedahay kana waa la mid kana waa la mid الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور ويسد طهر قاضشد اسنظيفنت شطر الإيمان إيمان كبر بيكته والحمد لله إلا يداهدانا تملأ الميزان ميزانك أعماش قفك بوحنيسا وسبحان الله إيا والحمد لله تملأان لبضع سوى بوحنيا أو تملأ أما وبوحنيسا متكي ما بين السماء والأرض سمض يدلك انت أدى حيساي بوحنيسا والصلاة صلاة نور وإفتين والصدقة صدقتنا برهان ودليل عدوي وحوق بضن والصبر صبر كنا ضياء وإفتين والقرآن قرآن كنا حجة لك دليل بكون نقل أو عليك أما أذيب حجة كون نقل كو فور مرخاتية كل الناس دتك دمانتي يغدوك الله هي فبائع نفسه ومن نفتي سئيبين يمركك الله فمعتقها ومن نفتي سحرين يبدبادني أو موبقها أما ومن هلاك يوي لا ثالث لهما فريق في الجنة وفريق في السعير لبضع صنبال لقدام بيني إلا هلاك سمو يا إلا بدبادو قالوا حوي مالنا حكى بحيسا ما شرته حديثك واحد صورنا يا أبو مالك الأشعري كعب بن عاصم بالليلة سنة كي تضباط سنة خيبر أيو النبي قويم عليه الصلاة والسلام يسوى مهاجرة وحانو كل انت طاعون كي عانك هي طاعون عمواس يا أبو عبيدة عمرو بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة يا معاذ بن جبل وأنه صومرني
iyo saxaabiganiba ay maalin ku wada dhinteen taacuunkaas sanadkii 18 hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam. xadiidka waxaa lagu bilaabay aطuhuuru shatru liimaan. aطuhuur maxaa looga jeedaa? culimmadu macnayaal badan bay ku macneeyeen. shatru maxaa looga jeedaa? ma nus baa looga jeedaa mise qayb baa looga jeedaa? ama ha badato ama ha yaraato, waa la isku khilaafay. aliimaan maxaa looga jeedaa? qaar waxay yidhaahdeen waa iimaankii la yaqaanay, an tumina billahi wa malaaikati. qaar waxay yidhaahdeen maya, salaadaa looga jeedaa, wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum. marka aطuhuur shatru liimaan, waysadu salaada ka badh wey. badhna waa salaada, badhna waa weysadii. salaadu ansixi maysa haddaan loo weysaysan. aqwaasha waxba faahfaahin mayn. qowlka nuxurka ah ee khulaasada ah ayuun baynu sheegi insha allahu tacaala. aطuhuur kelmaddu waa isnadiifin wey. marka macnayaal kala duwan, caqiidadii oo tawxiidkiiya oo shirkigiibaa najaaso lagu sheegay, inama almushrikuuna najas. marka waa iimaankii iyo caqiidadii iyo tawxiidkii, macnayaashu waa badan yihin. laakiin waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsanaya riwaayaat xadiidku leeyaho sunanta ku yimi ayaa waxay leeyihiin alwuduu'u shatru liimaan. qaar waxay leeyihiin isbaaqu lwuduu shatru liimaan. marka aطuhuur macnaheedu muxuu ku caddaaday? weysu ku caddaaday. waayo xadiidka waxa ugu fiican ee lagu macneeyaa waa riwaayaadkiisa. marka aطuhuur waa weysadii. weysadu sideebay iimaanka badh uga tahay? weysadu maxay nadiifisaa? marka weysanimo laga yimaado xubnahay nadiifisaa, xubnuhu nadiifiya. waxaa kaloo la mida maydhashadii, xubnaha muuqanayay nadiifiyaan. marka acmaashu waxay u qaybsantaa daahirun wa baatin. cibaadooyinkuna dhammaantood waxay keenaan nadiifin bay keenaan. laakiin qaar nadaafadoodu muuqanaysaa waa jidhka inay nadiifiyaan. nadaafadoodu waa daahir wey. weysadii, maydhashadii waa acmaashii daahirka ahayd bay ka joogaan. salaadii, ina salaata tanhaa can alfaxshaai walmunkar. faxshaagii bay kaa nadiifinaysa. xumaantii aad samayn lahayd qalbigaagay ku soo dhacaysa, salaaddaa kaa nadiifinaysa. tanhaa can alfaxshaai walmunkar. sadaqadii iyo zakadii, khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum, waxbay nadiifinaysa. asiyaamu junna min annaar wa min almacaasi, dembigu kaa ilaalinay hadaad soom ka badiso. marka kuwaasina waxay nadiifinayaan baainka. baainkay nadiifinayaan. qofka qalbigiisa, iimaankiisay kobcinayaan. salaadii, soomkii, zakadii, xajkii iyo wixii lamida, acmaashii badnayd. weysaduna waxay u taagan tahay acmaashii nadiifintii muuqanaysay bay u taagantahay. marka aطuhuuru daahirun wa baain wey. marka qaybta daahirkee muuqanaysa waa weysadii iyo maydhashadii. iimaanka iyo khisaashiisa iyo qaybihiisa qayb ka mida wey. qaybta kalena waa inta muuqanaysa. shayga haddii la yidhaahdo waa laba qaybood, macnaheedu maaha nus iyo nus maaha. marka acmaasha iyo cibaadaadka iimaanku ee qofka daahirinaya waxay u qaybsamaan kuwo daahirinaya daahirka xubnihii iyo kuwo daahirinaya baainkii ayay u qaybsamaan. marka daahir iyo baainna waa laba qaybood. weysadu waa qayb, kuwa kalena waa qayb wey. macnahaasaa ugu dhow, ilaa macnayaashu waa badan yihin. aطuhuuru shatru liimaan waxaa laga dabageeyey walxamdu lilah wa subxaana allah walxamdu lilah tamla'u lmiisaan
marka hore waxa la sheegay alxamdulillah ilaahay illa ma hadiyo miisaankay ku buuxinaysa hadaad ilaahay wanaag oo dhan aad u sugto waxa kale lagu xajiyay wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bayna as-samaa'i wal ard labada illa israa'iyana waxa ku sugan macno weyn baa ku sugan subhanallah wa ceeb oo dhan ilaahay loo diido nuqsaan oo dhan ilaahay loo diido alxamdulillahna wanaag oo dhan ilaahay loo sugo marka labada illa israa'iya waxay tilmaamaysaa ceeb oo dhan ilaahay loo diido wanaag oo dhanna Allah subhanahu wa ta'ala loo sugo sida awgeed ba aad la israa'iya labadaas wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi quraanka way ku badanta fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir وسبح بحمد ربك حين تقوم سوى فسبح باسم ربك العظيم لكن حمدي ما كما قلت أحاديثنا وكبرت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من قال في يوم حين يصبح وحين يمسي 100 مرة سبحان الله وبحمده لم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك أو زاد عليه سبحان الله وبحمده كتابك يا سنة آد بي وبضنت مركز السماء يقول كي كوب وحين يسابون النبي عليه الصلاة والسلام وحالة المامة الصلاة النور صلاة وايفتين نور وحوية أي وجه قوته أو قلب قوته أو قبر قوته أو حشر أي موقف قوته وحوي الدنيا آخرة والنور بيكوتها وطول النبي عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة قفك صلاة إلالية نور بيكون قريس مركا الدنيا ذنا النور بيكوتها آخرنا النور بيكون قريس الدنيا ذا وحكم ذا نور كذا وحكم ذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وحكم ذا نور كذا حسلونين تكهلس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أفزع إلى الصلاة عليس هدوك يمادو حق الصلاة دا أيو دقدقي النبي عليه الصلاة والسلام سوى حسلوا دقو نور كاسي كمت وبدي آخرنا بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وحوي يقفك مساجد هذا الصعد سي وقلت كذا نور لما يستربى مع أنت قيام الله سيني مك الصلاة هو نور والصدقة برهان صدقتنا والدليل وحج على إيمان صاحبي قفك وحلب حيا إنه إيمان لي أي دليل وتاه سيدي دليل وتاه وحوي وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال وتحبون المال حبا جما حولها آد بان لو جعلي مركا حوله آد كسو تعبتي آد كسو ديدي بعد وحويه بحنيسا إلهي درتي وحي آد جعليت آيات بحنيسا وآيا واحد دونيسا جعيل كبضا إناد حقيقس إلهي وكو جعلاته أدقنا إلهي آد كو جعلاته marka iimaan buu ku tusaya qofku haduu sadaqada badiyo oo sadaqatu burhan walibana sadaqadaasi waa hadii ay dhacdo meesheed ya xaaladaheed waayo marna adigoo haya $10,000 jeebka ku haya baad $1 saadka ku dirays $1 miya tabays marna adigoo $2 hayaad mid bixinays miya simayn sabaqa dirhamun 1000 dirham buu nabiga kaleey salaatu wasalaam hal dirham baa wuxuu ka dheereeyay kun dirham waayo ka kunka bixiyay boqolaal kun buu ka soo dhex saaray kunka laakiin ka halka dirham bixiya waxa laga yaabaa kaaba inuu adduunka hay oo isdaafiyay oo bixiyay marka xaaladeeda ku xiranta nabiga waxa la weydiiyay sadaqada ugu fadli badan wuxuu juhdul muqil ki waxa yar haystay wixii yaraa inuu wax ka bixiyo waxa kale ku fadli badanta ayu sadaqati a'zamu ajran 'inda Allah bukhari muslim أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى صدقتي إن بحسو أديكو عافمات قبا وهي قفكو مركا
xanuun culus ku dhaco Allah inaga badbaadiyay ee la yiraahdo ka kicimays ama xaaladaadu waa culusta ama u dawshaa sadaqada isku daway sida xadiisu tilmaamayso inuu sadaqada sayriya laga yaabo si uu isugu daweeyo daawu mardaakum bi sadaqa laakiin adigu caafimaad qaba shahiih lahla jaalale oo filanaya hantidaadu inay badato kana baqaya faqri ka baqay ganacsigii baa meel fiican ku maray marka waxa weeye hadaad sadaqada badiso waxay soranaya waxa weeye raggii kula tartamaya oo ku dhaafaya xaaladahaas ay si fadli badanta wuxuu nabigu waa sabru diya sabrkuna waa iftiin diya ya nuur labaduba waa iftiin laakiin nuurkuna waa qabow diyaguna waa kulay huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an kulay baa ku jira wal qamara nuuran iftiinkeedu waa qabow marka salaadii waxa la siiyay qabow laakiin sabirku waa culays waxa lagu sabrayaa wax adag baa lagu sabraa sidaas loogu tilmaamay inay diya tahay wal qur'aanu hujjatun laka wa alayk qur'aanku waa laba mid inuu daliil ku noqdo xujja ku noqdo ku difaaco القرآن يشفع يوم القيامة البقرة وآل عمران تشفعان أو تحاجان عن صاحبهما قرآن كو شفاعي وكو دفاعي وكو هضلي حجة لك أو علي أما مرخاتك كو فري وحتى المام النبي كسو قبقبي كل الناس يغدو تذكر دمانتي وك الله هي كواك الله يا مكو شغلتك أيام سواعد والبا يا كل الناس يغدو تذكر وضك الله يا بالي مكو شغلتك الله يا مسوا قف والبا وقف والبا وايو تذكر جورك كسوك الله يا والبا مد شقوك الله يا مد عمل لانك الله يا مقاحدة فريساني صلى الله عليه وسلم لبضبوا يسوقني كاحتا مقاحدة اسكفر يستيان شقوك الليهن شقوا هيا وامح دميو اسكفر ديا وحبو ايغيا وشاكين ايا وهرليا وحبو سمين ايا قف دين نولوي شقوا هيا شقوا ساموا الدنبي وكبت باديو وكو هلاك سميو اما وعباد كي aan kan lihiina guriga iska joogay ka war soo galay isagu isla waa soo galay oo markuu soo tooso dad baa guriyaha ka shaqeeyay laptopkooda intay furtaan online ka ku shaqeeyay waa kala say muxuu ka shaqeynay hadaanu shaqaba hayna oo mobilkiisa galo shaqo haya hadaanu mobil la galin oo iska jiifana shaqo haya hurdadaas haday salaadii seejiso iyaduna waa halaag weey marka haduu de cibaado u niyoodo waajibka ilaaliyana ajar buu ka heli marka waxa looga jeedaa qofku meel uu joogaba iyo wuxuu qabanayaba qofku waxbuu ku foogan yahay waa qof hawl ku jira weey hawsha uu ku jiraana waa laba waa mid ku halaagsamayo iyo mid uu naftiisa ku xoreynayo buu nabigu kaleey salaatu wassalaam حديثكو فوائد التلمامة يوحى كمدة وحينو السغيا وحلو يقانا ميزان كنا وحقيقي وميزان نبوي والله تابني لبك فدود بولي عرب بولي وحسن ميسامي وحوي عمل كان لغو ميزاما اللو بدل يوحل دريميو قف كلفتي سال لغو ميزاما يدو عمل كيسا لغو قيمين ايو وراقيهم ملائكة عمل كاغا كو قرتين والغو ميساما صدح دابا والغو ميساما الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه وحي كورني عن ربه عز وجل عز غالب نقي وجل وينا الله سبحانه وتعالى حديث كحديث القدس بالليل هذا ووحي النبي يراهدو قال الله تعالى أما اللي يراهد عن النبي عن الله فيما يروي عن الله أنه قال ألا وحاوي إلهي بلغ وريني يا عبادي الضوم ضيديو إني أنه حرمت
وأن حارنتني ميا الظلم ظلمك على نفسي نفتيد وجعلته وحن كيل بينكم دحدين محرما مد حارانا فلا تظالموا أي فلا تتظالموا هاي استلمينا حديثكم ما دام دير يا مربى جملة بين دول استاغنا إن شاء الله تعالى حديث القدس محل إلى هذا ووحي النبي الله سبحانه وتعالى وكوريه بحديث القدس اللي إلى هذا مركا واحد شرى قرآن يا حديث القدس قرآن هو نصر نقالنا معروف حديث كالنبي قال وين نقالنا ووحي النبي قال له تيري عليه الصلاة والسلام هذا الكيس يا قول كيس يا فعل كيس يا وحي الله حديث القدس يقول الله صور دحية قرآنكم لفظ كيس يمعنيه سحق اللكيم لكن وحل له صور نقلية إلى قرآن حديث كنا معنيه سحق اللكيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى معنه هو وحي لكن أريده وحي استعمالية النبي عليه الصلاة والسلام كاسنا هو حديث قرآن يا حديث محيكو كلا دوي ولا يقانا سوما قرآن كدوا لقوا عبادة يستا صلاة لقوا كذا حديث كان لقوا ما عبادة يستا قرآن كوحوب بها يلو ويسقط حديث كان لو ما ويسقط كدرة قرآن كا يا قرآن هو السجية شكل ملك حديث كنا وحولية يا من ضعيفة يا من صحيحة يا قرآن كوا لقول عبادة يستقبل أجر بالجه اليوي حديث لكن وحوي يلا ممدة بكل حرف كسد أجر لجه لي ماي لكن كعلمي هذا أجر كذا ولا هلي لكن سير قرآن كمان حديث يا قرآن ساسي يكل دوي حديث القدس يقول لبده دور دحية اللفظ جيس يمعنيه وحق الله حق حديثك معناه كريه حق الله لكن حديث القدس لفظ جيس هذا يا عبادي إلهي بهالله لما نبي ما أرن يا عباد الله إن الله حرم على نفسه الظلم لما أرن إلهي بهالله marka lafdiga xaga lukay macnuhuna xaga lukay xaga quraanku kala midi wixii inta ka soo haray xadiisku kala midi xadiiska ayu kala midi marka xadiithul qudsigu quraan ma aha wa xadiith laakin wa xadiith lafdigiisu iyo macnihiisuba xaga alla u kayimi marka xukumka xadiithku qaadanaya xukumka quraanka qaadan maayo لكن حق أريجا إيو معنوه با حق قرآن كلامية قرآن هانم بان لو شيء وين تصل إلهي وحاولي هاي ظلمك وانسك حارنتني مي ظلمك ووضع الشيء في غير موضعه شيء ماشي لو تلقى المال أنا هين إلا ديجو أي ظلم الليلة قفبا وحوي وناك سميي حمام بعد جوابت وظلم mar hadduu wanaag sameeyay inaad wanaag u samaysay qof baa ku shaqeeyay wuxuu kugu shaqeynaya mushqaayad waxay inaad mushqaayad siiso maad siin dulmi baad ku samaysay dulmiga kaasa leeyahay ilaahay naftiisa waa ka xaaraantinimay oo nin waxa weeye salaatul leyl tukanayay oo cibaadaysanayay oo aan dambi ku dhicin ama toobad keenay ilaahay iska cadaabi maayo wama rabbuka bidhallamin lil abid mid gaaloobay ama saaxibu dambiya oo wuxuu doona sameeyayna la iska janayn maayo oo la xisaabtamay marka ilaahay shay walba halkiisu dhiga cadligu ku sifaysay dulmigana waa iska xaaraantinimay isaga naftiisa ka xaaraantinimay cidina alla kuma kalifin ya ibadi adomadaydiyo kullukum dhamantin dallun wa midlun sal illa man hadaytuhu midan hanuniyay mooyaan fastahduni iga dalbahanu ahdikum waan idin hanuuninay ilaahi waxyaabaha inuu ka dalbayno inuu ka doonayna waa laba inuu yahay waxaynu aakhira uga baahana ama adduunyo uga baahana shay aakhiro ama shay adduun mid waliba wuxuu u qaybsamaa dheef aynu soo jiidanayno inuu baahana iyo dib aynu doonayno in laynaga difaaco
marka daalun waa dhibaato aakhira dhib inugu ah oo aynu doonayno ilaahay inuu inaga celiyo hidaayaduna waa dheef haddaynu helno aakhira in anfacayso janno aynu ku galayno ilaahay baa la weydiisanaya yaa cibaadii addoommadaydiiyo kullukum dhammaantiin jaa'icun waa gaajoonaya ilaa man acamtuhu midaan quudiyey mooyaane fastadcimuunii quud ii weydiista ucimkum waan idin quudinaya gaajadu adduunyada waa dhib aynu ka baxsanayna wey quud inaynu hellaana waa dheef aynu doonayno ilaahay baa la weydiisanaya ilaahay baana haya أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون وعبتانك عنتظينا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما وتبيا لي فظلتم لو نشاء لجعل أفرأيتم ما تزرعون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما marna waxa la yiri wixii aad beerateen idinko midhihi ka sugaya ilaahay qashi ka dhigay biyihiina waxa la yiri la jacalnaahu ujaajan biyo qaraar oo la cabi karin baan ka dhigila marka ilaahay ba gacanta ku hay marka cuntadii lagu keenay cabitaankiina inay ka degtana ilaahay ba gacanta ku hay mar baanay ka badageen cuntadii ilaahay ba wax qoodiyay yaa cibaadi adoomadaydiyo kullukum dhammaantiin caarin wa midqaawan oo waxba xidhnay asalkuna waa sidaas inagu qaawan baynu dhalan qabrigana inagu qaawan baynu ka soo baxayna adduunyada la inaasturay illa man kasawtuhu midan labisu xidhan mooyaane fastaksuni hu iga dalba aksukum hu baan idin siinaya waxaad xidhataan baan idin siinaya yaa cibaadi adoomadaydiyo innakum idinku takhta'uuna waa gafaysaan billayli wannahaar maalintii iyo habeenkii baad gafaysaan تخطئوننا والله ضبط كرا لكن واحد في عن تخطئون أو خطئ ودم بابيوي يخطأ ودم بابيوي أخطأ أنا وقفي خلط بكل عيوي مركا خلط كان تبغى واحد الله استعمالها كما وليس عليكم جناح فيما أخطأتم فيه ولكن ما تعمدت قلوبكم مركا الله واحد في عن تخطئون إلا إله يعني والدنباب يسوي خطئ يخطأ إنه كان خطأ كبيرا خطأ وذنبا كبيرا إنكم إذوكم تخطئون أي تذنبون والذنباب يسن بالليل والنهار مالين يهبي وأنا أقول أغفر الذنوب جميعا ذنوب تدمات ذوان دافا فاستغفروني دم بدافي ويدي استغفر لكم مالدين دم بدافي يا عبادي أضم ضيديو إنكم إذوكم لن تبلغوا قاري ميسان ضري نبكي إن هذه الدبتان قاري ميسان فتضروني كدبنا هذه الدبتان أودي ميسان ولن تبلغوا قاري ميسان نفعي واحتركي إيقنا ما قاري ميسان فتنفعوني كدب هذه أنفع ذا يا عبادي أطوم ضيديو لبدا الجملة نوحي تلمام ميسان يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إنك باهن إلهي إنو مباهنا تكلنا وحي تلمام ميسان ضعفنا وخلق الإنسان ضعيفا إلهينا وقوي عزيز إننا ضعفنا مركا حبي لكرمين واحترنا وكيني كرمين يا عبادي الضوء مضيدي لو أن أولكم كينا يدين كهرية يا وآخركم كينا يدين كضنبية يا وإنسكم إنسجين يا وجنكم جنكين دمانتي كان وهدي أي هذا على أتقى قلب رجل واحد ننكليه qalbigiisa ugu cabsida badan ninkaasoo minkum idinka kamida hadii ay aad ku sugan tihiin oo sidaa tihiin ma zaada dalika taasi ku kordhin maysa fi mulkigayga shay'an ku kordhin mayso culimadu waxay dhaawaan nabi maxamed oo kale atqa rajul aynu ognahay ama ay tahayba waa nabi maxamed alayhi salatu wasalaam haddii dadka dhammaantood nabi maxamed oo kale ay noqdaan ilaahay waxba u soo kordhin mayso ilaahay waxba u soo kordhin mayso yaa cibaadi adoomadaydiyo law anna awwalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu haddii ay ahaadaan dhammaantood calaa afjari qalbi rajulin waaxid
ninka ugu dembiga badan qalbigiisa ninkaasoo minkum idinka idinka mida maa naqasa dalika arrinkaasi ka nuqsaamin maayo min mulkii mulkigayga shay-an shayna ka nuqsaamin maayo yaana ugu gaalsan dadka ya ibliis baa lambar wana isagaa lambar wana haddii dadkuba jinni iyo ins awalan wa aakharan ay sida ibliis oo kale xagga gaalnimada noqdaan ilaahay waxba ka nuqsaamin maysa mulkigiisa yaa cibaadii addoommadaydiyo low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum qaamuu hadday istaagaan fii saciidin garoon waaxidin keli ah hal garoon hadday isugu yimaadaan bannaan keliya fasa'aluunii ay waxay weydiistaan ay shay-an waxay weydiistaan faacطaytu an siiya kula waaxidin mid kasta mas'alatahu su-aashiis maa naqasa dalika taasi ka nuqsaamin mayso mimaa cindii waxa agtayda ah ilaa kamaa yanqusu lmikhyadu sida uu u nuqsaamiyo irbadu idaa udkhila albaxra badda marka la geliyo ma nuqsaaminaysaa irbadan maryaha aynu ku talanno haddaynu badweynta geyno oo aynu gelino oo aynu ka soo saarno badda miyaa nuqsaan lagu arkaya badweyntaasi intay leeg tahay marka irbadaa la geliyo waxba ka nuqsaamin mayso ummadda dhammaanteedna hadday meel isugu yimaadaan oo mid waliba baahi sheegto yasmacu jamiica alaswaat biikhtilaafi allugaat maca tafanuni alxaajaat luqaday doonaha ku weydiistaan baahiday doonaha weydiistaan ilaahay u wada jawaabo milkigiisa alla subxaanahu watacaala waxba ka nuqsaami maaya sida irbaduba badweyntaanay waxba uga nuqsaaminayn yaa cibaadii addoommadaydiyow inamaa in kala maahiyadu acmaalukum acmaashiini wey uxsiihaa lakum waan idin koobaya oo waa laydin kaydinaya waa laydin xisaabinaya waa laydin ururinaya fii kitaabin laa yadilu rabbii walaa yansa waxna aanay ka lumayn waxna aan laga ilaawin uma uwafikum iyaaha waan idin oofinaya oofintaasina waxay ka dhalanaysaa wixii aad samaysay abaalkeedii wey marka ma adduun baa mise waa aakhiro abaalmarintaas ma adduunka mise waa aakhiro waa adduun iyo aakhiro labadaba adduun iyo aakhiro labadaba wey ayib gaalku hadduu wanaag sameeyo ma lagu abaalmarinaya ya haye adduunyadaa lagu abaalmarinaya isagoo halkan ku dhamaysanay waa yaa cibaadii buu soo gudagelay yaa cibaadii waa addoommadii alloo dhan gaal iyo muslimba waa soo gelaya acmaashaa laydin koobaya uma wafiikum iyaaha waa laydin oofinaya adduun iyo aakhiraba faman wajada kii hela khayran wanaag falyaxmad illaaha ilaahay ha mahadiyo muxuu ilaahay ku mahadinaya dee ilaahay wanaaggaa inuu tusay kow laba wanaaggaa inuu fuliyey oo uu sameeyey saddex wanaaggaa inuu ku abaalmariyey ilahay uga mahad celi waman wajada kii hela hayra dalika intaa waxaan ahayn falaa yaluumana yaanu canaanan ilaa nafsahu naftiisa mooyaane wallahu aclam sal allahu waslm cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslm